madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidaad la socoteen dhawaantan waxa uu socdaal guuleysta ku tagay magaalada Sochi ee tamashlaynta iyo dalxiiska loo tago ee ku taala wadankaas Ruushka. madaxweynaheenu waxa uu uga qayb galayay shirka halkaasi ka dhacayay oo loogu magac daray shirka Afrika iyo Ruushka. ruushku waxa uu doonayaa inuu Afrika dib u soo ceshto dalalkii uu ku lahaa jiro Soomaaliya ugu cadcadeed uguna muhiimsanayd. ruushku waxa uu si aadan nooga taageeri jiray xagga militariga oo ay Soomaaliya u dhisay militarigii ugu xoogana uguna fiicnaa qaaradda Afrika haba si ahaatee Afrikada Saxaraha ka hooseeya. haddaba madaxweynaheena markii uu halkaasi tagay waxa la sheegayaa in 6 arrimood oo guul uu ka soo yeeyay madaxweynaheena uu la tagay socdaalkii uu ku tagay wadankaas Ruushka iyo shirarkii uu ka qayb galay. qodobka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay mid aan looga baran madaxdii hore madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisuna ay markaasi ku noqotay mid ay ku soo baxeen. waxa ugu weynna uguna muhiimsanna taas oo qorshe dhammaystiran oo ay dawladdiisu la tagtay. qodobka koowaad wuxuu yahay in qorshe dhammaystiran ay dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigu hogaaminayaba ay la tageen shirkii Sochi ee Ruushka ka dhacay qorshe dhammaystiran oo ay dawladdiisu rabto in wax looga qabto. qodobka labaad waxa uu yahay in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ilaaliyeen karaamada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed markii halkaasi isugu tageen ku dhawaad 50 madax oo Afrika ka socda. waxaa ka mid ah wadamada tagay wadamo ay colaad nagal dhaxayso waayadan dambe sida Kenya oo kale oo doonaysa in ay badeena dhacdo. waxaa la sheegayaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan hoos u dhigin karaamada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed isla markaana uu wax u cuntumi kara qabka iyo Soomaalidu waxa ay rabto uu halkaasi la tagay. qodobka saddexaad waxa uu yahay maalgelinta kaabayaasha dhaqaale oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa la sheegay inay u ahayd waxa ugu muhiimsan uguna weyn. madaxweynaha ayaa hordhigay shirkadihii iyo maalgashadayaashii caalamiga ahaa ama dadkii maalgelinta samayn lahaa ee halka ku sugnaa in Soomaaliya loo maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha dekedaha airportka iyo wax kasta oo dhaqaalaha in uu kordho fududeynaya. qorshahaas oo isaguna u muuqday inuu noqday mid guuleystay. qorshaha afraad waxa uu yahay dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si qaas ah ula kulmay dhigiisa wadankaas Ruushka Vladimir Putin waxaana uu hordhigay qorshe uu ku doonayo in dib loogu dhiso ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo burburay muddo 30 sano ka horeeya. waxaana wararku sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo muujiyay fallaar cagaaran oo muujinaysa in wax badan laga qaban doono arrimahaasi. qodobka shanaad waxa uu yahay xiriirka Ruushka iyo Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo ku guuleystay inuu dib u soo celiyo isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka socda ee muddo dheer kadib booqda wadankaas Ruushka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana haatan waxa uu markaasi ku qanciyay Moscow in ay Muqdisho xiriirkeedii dib u soo celiso isla markaana ay wada macaamilaan. qodobka lixaad ugu dambeeyo uguna muhiimsan Soomaalidana wax badan u keeni kara hadii gacanta dawladdu ay xoogaysato ayaa in hub iyo gaadiid dagaal la siiyo dawladda federaalka Soomaaliya si ay argagixisada ula dagaalanto. waxa la siin doonaa dawladda gaadiid dagaal oo casri ah oo ay kula dagaalamayso argagixisada iyadoo dawladda Ruushku ay ballan qaaday in Soomaaliya ay ka gacan siin doonto la dagaalanka waxa lagu yeeray argagixisada ku sugan Soomaaliya oo ay xarakada shabaab ugu weyn tahay. halkaas aad naga daawanaysaan waa shabakada wararka ee warqaa tube. gulahaas adigu ma nala qabtaa daawade ku soo dir fikirkaaga qaybta hoose ee commentiyada ee bartan Facebook-ga. waa bartan aynu ku leenahay YouTube channelka iyo Facebook labadaba waad nagala soo kartaa. dhanka kalena aan fiirino xagga Itoobiya ayaa samaysanaysa quwad Nugliyeer iyadoo oo jiritaanka dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ay mugdi sii galayo. dawladda Ruushka iyo dawladda Itoobiya ayaa kala saxday heshiis dhammaystiran oo Itoobiya lagu sameeyo quwad Nugliyeer oo markaasi ay Itoobiya u adeegsan doonto waxyaabo badan oo hubka uu ka mid yahay. shirkadda Ruushka u qaabilsan xagga ciidamada iyo hubka gaar ahaan hubka Nugliyeerka ayaa waxa ay heshiis la gashay wasiirka xagga horumarinta quwadda tiknoolajiyadda ee dawladda Itoobiya. waxaana heshiiskaas badhig u ahaa in Itoobiya ay yeelato quwad Nugliyeer iyadoo oo noqonaysa waliba isha quwadda Nugliyeerka ee qaaradda Afrika. Itoobiya waxa ay u muuqataa in ay aad uga sii dhawaanayso saaxiibada kale ee qaaradda Afrika marka la fiirsho Ruushka saaxiibtinimada la sameysanayo.
waxaana haatan la sheegayaa in heshiiskaas qalinka lagu duugay oo dowladaha Kenya waa dowladaha Itoobiya iyo Ruushku ay wada saxiixdeen quwad nugliyeer oo ay Itoobiya hesho waxa ay mugdi iyo walaac badan ku sii abuuraysaa dalalka qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo wadamada kale ee cadawga la ah Itoobiya kuwaas oo aysan Itoobiya rabin inay jirto Soomaaliya oo kale Itoobiya waxay doonaysaa inay cagta mariso waxaana aaminsan tahay in uu yahay gobol iyada ka tirsan dacda kalena daawadayaal farmaajo iyo ninka lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa guul darro weyn ka soo hooyay tartankii lagu jiray kuraasta urur goboleedka IGAD madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u muuqda kuwo guul darro weyn kala kulmay loolankii kuraasta urur goboleedka IGAD abiye Ahmed Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya isla markaana gudoomiyaha urur goboleedka IGAD ayaa waxa uu sir rasmi ah u magacaabay xilka xogayaha fulinta ee ururkaasi kaasi oo ay horay dad ugu sharaxeen Farmaajo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne Farmaajo ayaa shakhsi u diyaariyay in loo magacaabo xilkaas halka uu madaxweynaha Jabuuti isaguna u qorsheeyay qof Jabuutiyaan ah in uu buuxiyo booskaasi balse labadooduba ay guul darro kala kulmeen kadib magacaabistaasi abiye ayaa xilkaasi u magacaabay Dr. Wakonika Gabyuhu oo horay u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxaana xilkaasi kala wareegi doonaa ninka lagu magacaabo Maxbuub Macallin oo isagu ka soo jeeda waddanka Kenya magacaabista abiye Ahmed ayaa waxay muujinaysaa mid soo afjaraysa dadaaladii madaxweyne Farmaajo iyo Geelle ay ku rabeen in xilkaasi loogu magacaabo shakhsiyaad ka soo jeeda labada dal taas oo ka dhigan in ay guul darro weyn kala kulmeen loolankii gudaha IGAD ka dhex taagnaa dhinaca kale waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu qorsheynayo in uu xilka gudoomiyaha IGAD ku wareejiyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kaas oo si markaasi dadban la isugu afgartay shir dhawaan Addis Ababa ku dhaxmaray madaxda urur goboleedka IGAD oo uu Farmaajo goob joog ka ahaa qaybihii dhexe wararka warqaha tube ayaan isla soo gaarnay Soomaaliya ayaa dunida la hortagtay qaran xisaabtami kara kadib shirki ka dhacay magaalada Washington ee cariga wadankaasi Mareykanka dowladda federaalka Soomaaliya shirkay uga qayb gashay dalka Mareykanka gaar ahaan shirkii ay qabanayeen bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta IMF ee October 14 ilaa 20 sanadkan 2019 dhacay ayaa waxa loo arkay inuu ahaa shir Soomaaliya ku soo bandhigtay waxa ay tahay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu ka qayb galaya ayaa halkaasi tagay waxaana Soomaaliya ay tustay adduunyada inay tahay qaran xisaabtami kara dhinaca kale shirku waxa uu markaas ku soo beegmay xilli ay markaas is-afgarwaa ka dhashay warbixin uu hanti dhowrka guud ee Soomaaliya soo saaray waxa maaliyadda ku saabsanad laakiin Soomaaliya waxay muujisay in arrimahaasi aysan u dhootinaynin dadkii ka qayb galay shirkaas ayaa muujiyay in dawladda Soomaaliya iyo madaxdeedu ay soo bandhigeen karti muujinaysa in dawladda Soomaaliya ay tahay qaran cududaheedu wali aysan jilicsaneen oo xisaabtami kara isla markaana deynta lagu leeyahay laga cafi karo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dadaal badan ugu jira sidii wax looga qaban lahaa qaranka Soomaaliya oo muddo dheer dhibaataysnaa godna ku jiray halkaas aad nagala socotaan waa shabakada wararka warqaha tube madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu waramayaa inuu imaanayo magaalada Muqdisho iyadoo dawladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabo yaab leh danjiraha qaramada midowga u qaabilsan Soomaaliya James Wan iyo sidoo kale safiirada beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxay wadaan dadaal isugu soo dhaweynayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Axmed Madoobe wararku waxay sheegayaan in James Wan uu ka shaqeynayo sidii Axmed Madoobe uu imaan lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana uu la kulmi lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda Soomaaliya ayaa la sheegaya in aysan aqbali doonin talaabadaas laakiin wararku waxay sheegayaan in haddan madaxweyne Farmaajo uu soo dabcay isla markaana uu ogol yahay in ay wada hadal intii ay rabtaba la ekaatay uu la yeesho Axmed Madoobe ayaa dawladdiisa iyo doorashadiisa waxa loo arkayba mid aan sharci ahayn iyadoo dawladda Soomaaliya ay arrinkaasi si weyn uga soo horjeesatay qaybihii ugu dambeeyay ee wararka warqaha tube ayaan markana isla soo gaarnay daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta inaga mudano dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa awoodi ka qaaday guddiga ay u magacaawday in ay soo dhisaan
dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug ayna soo magacaaday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxaana loo diiday in ay dhexdooda ka doortaan xogeeye guud arintaas oo u muuqata in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka dambayso 3 qofood oo kamid ah guddiga ayaa muujiyay in ay shaqadooda u madax banaan yihiin laga soo bilaabay markii la magacaabay balse wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya injineer Cabdi Maxamed Sabriye ayaa ku qanciyay guddiga in aysan u madax banaanaan shaqadaas isla markaana xogeyaha guddiga uu noqdo Yaxya Cali Hariiri oo ka socda dhanka wasaaradda sidoo kalena qaraabo dhow la ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xubnaha guddiga oo markii horeba markaasi badankood ahaa dhalinyaro taageersan siyaasadda madaxda dawladda ayaa u muuqda guddi aan awood u lahayn in uu soo dhiso maamul loo dhan yahay oo markaasi la marsiiyo sifo sharciga waafaqsan ugu dambeyntiina daawadayaal maamulka Jubbaland ayaa war cusub ka soo saaray xariga wasiirka amniga ee Cabdirashiid Janan kaas oo xiran dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa bayaan ka soo saaray xariga wasiirkoodii amniga oo dowladda federaalka Soomaaliya xiran oo dhowr bilood jeelka ku jira magaalada Muqdisho jeel ku yaala wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in Cabdirashiid Janan uusan ahayn dambiile isla markaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay sii dayso waxa uu ugu baaqay gudoomiyaha golaha shacabka iyo aqalka saraba in ay kaalin ka qaataan siideynta wasiirkii amniga oo tan iyo markii la xiray hal jeer ka soo muuqday maxkamadda gobolka Banaadir ugu dambeyntii waxa uu sheegay in haddii la sii deyn waayo wasiirka cawaaqib xumo ay ka dhalan karto mas'uuliyaddaasna ay qaadi doonaan gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mas'uuliyaddaas dusha u ridan doono intaas ayaan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta inaga mudan ku soo gabagabeynaya wararkii warqaa tube oo aad si toos uga daawanaysan channelkeena warqaa tube waxaan noo ballana wararkeena kalena inaad la socotaan oo aan gordhow soo gelin doono